gobolka Haysan ee dalka Jarmalka ayaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana munaasabadan isu agaasimay jaaliyadda Soomaalida ee Kassel gudoomiyaha xisbiga UPD ee qaaradda Yurub Daahir Jabshi gudoomiyaha golaha ajaanibta ee magaalada Kassel Cabdullaahi Wacays gudoomiyaha jaaliyadaha Soomaalida ee dalka Jarmalka Injineer Xasan Buraale culimaadudiin haween dhalinyaro fanaaniin waxgarad ayaa ka soo qayb galay xafladani lagu soo dhaweynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee ugu horeen gudoomiyaha xisbiga UPD ee qaaradda Yurub Daahir Jabshi ayaa ugu mahadceliyay jaaliyadda Soomaalida Kassel oo xafladani soo agaasimay waxaana sidoo kale markaasi ka hadlay mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo iyagu halkaasi lagu casuumay waxaana hambaliyo iyo ducaba ay u direen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jarmalka gaar ahaan jaaliyadda Kassel ee garab weyn iyo taageero weyn iyo iskala istaag la guddoonsiisay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan kasoo qaybgalayaasha sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale anigoo ku hadlayo guddiga qabanqaabada xafladda waxaan idin leeyahay soo dhawaada xafladda lagu soo dhaweynayo mudane xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii tobanaad waxaan leenahay xilkaaga ilaahay kula qalab waxaan xafladatan quruxda badan ee lagu taageerayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aan hambaliyo bogaadina ku diraynaa sidoo kale madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud waxaan u hambaleeyaynaa madaxweynaha qaranka mudane xasan sheekh maxamuud waxaan ilaahay u baryaynaa in xilka ilaahay uu u fududeeyo waxaan hadda aan rabnaa inaan mataqaana aan tidhaahno mudane tareenka diyaar baan u nahay tigidkana waa loo baahan yahay xagga horaan ka fadhiisanaynaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow waxaanu kaa rajeynaynaa sida habeeskaaga uu ahaaba soomaalihiis ah ummaddana ama adduunkan heshiisla ah waxaan leeyahay mudane madaxweyne allah kula qalab karo xilka iyo mas-uuliyadda aa qaatay waxaa taa mas-uul ka soo bixi karo laguna aamini karo dalka iyo dadka iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan xafladan quruxda badan leh oo caawa Soomaaliyeed isku timid oo lagu taageerayo madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud laakiin waa u duceynaya oo waxaan leeyahay mudan madaxweyne allah kuu safiro oo ku fududeeyo howlaha adag ee lagu igmaday iyo mas-uuliyadda dusha lagu saaray allah kuu fududeeyo ayaan leeyahay hambaliya caata looga baahan yahay madaxweynaha in talo meel ku ool ah loo gudbiyo loona duceeyo duco meel ku ool iyadoo loo gudbiyo inaan maaragtay dabaaldeggaas iyo farxaddaas iyo reereerkaas aan caawa maaragtay qayb kaga noqono si aan madaxweyne ugu muujino inaan nahay maaragtay shacab u bisil dowladnimada intaa ka bacda xaqiiqdii maanta waxaa iskugu yimid dadku intooda badan hambalya yidhaahdeen laakiin anu waxaa leeyahay waa duco aynu u ducayno madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay ilaahay haddooda hawsha culus ee hortaala waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ha guulaysto mudane xasan sheekh waxaan leeyahay hambalyo mudane madaxweyne waxaan kaa codsan lahay annagoo ah jaaliyadaha Soomaalida ee Jarmalka inaad hormarisid cadaaladda iyo dhalinyarada bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah dhammaan soo qaybgalaasha sharafta badan mansab kasta maqaam kasta jooga waa idin salaamay salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan soo noqon doonaa mudane xasan sheekh waxaan ku leenahay haddaan
Soomaaliland nahay intii xilligan macnaactiwili haddaan ku soo noqdo mawduuca siyaasadeed waqtigaan xilka ka tagtay wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya meel fiican bay marayeen ilaa halkii kasii wadaan kaana sheegaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh markaas waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu maxay ahayd tahay uu waxyaabo badan qaban doono oo ay ka mid tahay inuu shabaab ka xareeyo dalka inuu maamuladii xoojiyo oo federaalka xoojiyo inuu banaadir cabdikariim xuseen majaay dalsan TV Germany si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.